فهمتي halista uu leeyahay taliska madaxweyne farmaajo ee taliskiisa nabadgelyada waxaad ogtiin dowladda Mareykanka inay hadda ka hadlayso inay jiraan dad qaswadayaal ah ayna caddayn ku qoraalkooda inay ku cad yahay inta kalena ay maanta soo saari doonaan ama bari waa soo dhaweynayna dareenkaas waa soo dhaweynayna aragtidaas saddex sano ku celinayna inay qaswadayaal jiraan dalkan aan ogoleyn xasiloonidiisa iyo nabadiisa sidaasoo kala raba Soomaaliduna inay fahmaan cidda qaswadayaasha ah oo dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo dastuurka iyo dib u heshiisiinta iyo dad isku wadka iyo wadajirka iyo midnimada dalka diiday inay ogaadaan ayaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed oo ay ogaadaan Ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wattaquu fitnatan la tusiibanna alladheena dhalamuu minkum khaasa dhibka inuusan ahayn cid gooni isku dhacayna kaliya ee dulmiga ay geystaan kooxdaasi oo Soomaaliland oo asiibayo waxaan ognahay ganacsato inta loogu soo dhacay business-keeda maramadow madaxa loo gili ayagoo ciyaalkoodii ama guryahoodii ama reeroodii dhex jooga ama business-kooda dhex taagan nabasuud ay xirtay iska haysatay waxaan ognahay kuwa loo diiday ganacsigooda waxaan ognahay dad shaqaysta oo NGO-yada ama jaamacado leh in jaamacadahooda la burburiyay waxaan ognahay in siyaasiyiinta lagu xad gudbay waxaan ognahay shacabka Soomaaliyeed maanta inay wadooyinka xiran yihiin waxaan aad ugu xumahay maalin kasta in lagu celiyo doorasho shacabku ay qayb ka yihiin shacabka rabna awood in ay u celino shacabka Soomaaliya shacabku laba cashuur laga ma qaadi jirin madaxweyne farmaajo maamulkiisa ka hor hal cashuur baa laga qaadi jiray mid dawladda ah maanta waxa laga qaadaa laba cashuur oo ay ka qaadaan shabaab iyo dawladda shacabku jidadka ma xirnaa jirin islaamuhu jidka kuma umuli jirin shacabka Soomaaliyeed ma ahayn qaraxyada 700 iyo 800 iyo 1000 ku dhow in laga dilo maalinla madaxweyne farmaajo ka hor ma jirin shacabka Soomaaliyeed ma ahayn mid xorriyadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa ay xanaban yihiin asaga ka hor marka shacabka loo turayo iyo shacabka maalin kasto afka lagu haysto halka uu jooga la yaabanahay iyo shacabkaas meesha uu ku nool yahay haddoosan hayn midka Muqdisho jooga oo dhibaatadan arkay iyo silicaan arkay ku nool haddoosan hayn shacabka la sheegay ciduu yahay ayaa la yaabanahay saas daraadeed waxaan ku baaqaynaa dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan dalka inuu badbaado u baahan yahay loo baahan yahay in la dhiso qaab la helo wadajir ah oo ay Soomaalidu marxaladda uga samata baxdo hadday tahay golo ku meel gaar ah dalkan badbaadiya hadday tahay shir qaran ee dalkan lagu badbaadiyo dadka Soomaaliyeed waa inay tashadaan waa inay ogaadaan waa inay la socdaan madaxweyne farmaajo doorasho ma rabo xukunka inuu nabad uga tago ma rabo waa ninka quuri waayay dastuurka qodobkiisa 103 waxa ku qoran xataa ra'iisul wasaaraha xil laga qaado iscasilo inuu asaga qofka xilka sii wadaya waa ninka raba digreeto dalka inuu ku maamulo oo ra'iisul wasaarka digreeto ku magacaabay oo wiilkii xafiiskiisa ka shaqeynay qof kale oo aaminay inta waayay xogayaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha ka dhigay madaxweyne farmaajo waa kaas Soomaaliyeed waa inaa baratiin 3 sano in baraynay waa inii sheegnay waad ku sirneedeen dad kale ku sirneedeen kuwa meel ka bootaya ku sirneedeen inay wax yihiinaad moodeen ma ahayn dalku wuxuu u socdaa haadaan iyo meel halis ah lama rabo hal soo inta la soo kaco oo la yiraahdo haddaan dadka badbaadinayna oo ay qeelan aan warma kama tuman ay dhacdo oo meel la aado wax laga bilaabo la waayo hadday tala leedahay sidaas daraadeed waxaan ugu baaqaynaa siyaasiyiinta doonaya siyaasadda inay muufaysiga iyo maalmaha kula jiraano war ilaahayna ka yaaba wartaas siyaasad maaha war waa mid dalka maanta meesha dhigtay war waa mid aad kalsoonida iyo dadnimada aad ku weyseen waliba waxaan ka hadlayaa dadka deegaankan jooga oo siyaasadooda ay noqotay maalinle iyo aniga maxaa iigu jira oo loo arkay inay noqdaan dad la xaqiro oo tala laga qayb gelin oo la warsanin dadka dowlad goboleedyada maamuladooda haystaan deegaanadooda ay xukumaan waxay la yaaban yihiin maalin kasta la weydiinayaan war maxaa ku dhacay dadkii ku nool magaalada Muqdisho maxay tahay siyaasadooda xagee u socotaa xagee ku wajahan tahay waxaan rabnaa saamilayda siyaasadeed hadday tahay xisbiyada hogaanada kala duwan qaybaha bulshada odayaasha dhaqanka ee deegaankan inay noqdaan dad qiimo leh oo wax isku falaya oo siyaasadda miisaan ku leh oo aragti kale oo dadnimo leh inay noqdaan rabnaa dadka Soomaaliyeed waxaan uga baahanahay inay ku garab istaagaan sidii dadka reer Muqdisho culayska iyo dhibaatada iyo silaca iyo bahdalaada iyo xaqiraada looga dulqaadi lahaa waxaana ku noolnahay haddaan nahay wadajir oo aan ku soconaa
shacabka Soomaaliyeed taageeradiis ayaan ku soconaa shacabka Soomaaliyeedna dhiirigeliya ruuxda ayaga noo dhisa dareenka ayagaana siiya falceliskooda iyo taageeradooda ku noolnahay waan kaga mahadcelinaynaa waxaan ka codsanaynaa taas talamida inaa garab istaageena iyo taageerada asii wadaan taasaa dadka dhiirigeli karta taasaa dadnimada iyo ku jirta iyo dareenkaas oo ku imaanayo waa ii caddahay masiirka madaxweyne Farmaajo inuu yahay meeshii uu dhigay saxaabtiisii talada dalka la timid shaki igama jiro inuu masiirkiisa mid mugdi yahay shaki igama jiro halkii uu ku dhameeyay gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasaaraha asaga inuu ku dhamaan doono shaki igama jiro inuu meesha sugaysa ay tahay meesha uu mariyay saaxiibadiis iyo kuwii talada wax yar oo shaki igama jiraan haba yaraatee laakiin waxaan diidanahay dhibaatada iyo eelka uu ka tagi doono oo dadka Soomaaliyeed uga tagi doono waa midda walwalka ugu haysa laakiin waxaan shaki iga jirin in uu masiirkaas isaga sugayo saas daraadeed waxaan u baahanahay Soomaaliyeed dhan hadaan nahay sida aan sheegay mid jooga dowlad goboleed mid xisbi siyaasadeed hogaamiya bulsho rayid oday dhaqan siyaasi aqal sare marka la ku celinay aniga waa iga dhintay agtayda mar hore aan sheegay golaha shacabka waxaan u baahanahay dhamaanteen inaan garbaha qabsano waxaan u baahanahay isbedel dalkan wuxuu u baahan yahay isbedel degdeg u baahan yahay isbedelkaas inaan ka wada shaqeyno oo aan keeno dad siyaasaddu mabda iyo damiir iyo dadnimo iyo principle iyo mabaadi ay ka tahay oo aan ahayn dad ka muufaysanaya siyaasadda maalintaas joogta oo maalin kasta siran meeqan arkay xildhibaan wasiir siyaasi madaxweyne hore maamul goboleed oo le waa isoo sireen nimankan maalin igu moodeen saasay yeeleen waxa u dambeeyay tii shalay oo ahayd midii lagu cibro qaadanayo marka waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay taageerada ay noo hayaan ay sii joogteeyaan waxaan rabnaa dalkan inuu kala dhaqaaq ku jiro kala guur ku jiro doorasho la aaday badbaadintiisa la iska kaashado adduunka hadda waa soo jeedaa awalna waa naga sii jeedeen waxay ku sirnaayeen dawladdan waxay ku sirnaayeen propagandada iyo beenta shacabka Soomaaliyeed waxay ku sirnaayeen waxa loo marsiiyo baraha bulshada wada beenta qof walba hadda waa aragtay dareenka waa soo wada jeedaa dadka waa soo istaagan yihiin waxaan rajaynaynaa isbedelkaas inaan dadka Soomaaliyeed ay ka wada qayb qaataan sidii dalkeena nabada dawladnimadeena noo badbaado dastuurkeena iyo dimuqraadiyadda sarreysa in aan halkaas aan ku dhignaa rajaynaynaa oo aan ku soo ka samata bixino kooxdan yar ee maaragtay qariska tuurka ee dhaqanka argagixisada leh ee dastuur iyo dimuqraadiyad iyo heshiisiin iyo dad iyo dareen wadaniyadeed midna aan lahayn inaan iska fogeyno oo aan iska qabanno oo gacanta qabanno unsur akhaaka daaliman oo madluuman ay ahayd haddii nalka qaban karane oo ay dadkii wax garadkooda ahay ama dadkii ayaga wax la ahaa wax la garanayay ama la shaqaysanayay say u dhigeen waa aragteen kuwaanu rajo ma laha inaan iska bedelno oo iska qabanno oo wada istaagno oo aysan qof dambe ku kadsoomin oo aysan qof dambe sirin oo qof dambe been u sheegin ayaan rabnaa waxaan kaloo ku soo gabagabeynayaa inaanan laga baqaynin argagixisnimadooda dadkaanu shabaabay ka baqi waayeen kuwii kunka dilay ka baqi waayeen kuwii argagixiyay ka baqi waayeen wiilal dhowr ah oo ku adeeganaya dhalinyaro maaragtay ciidanka Soomaaliyeed kamid ah cid ka baqaysa ma leh cid argagixi gelin karana ma laha cid u joojinaysana ma laha yeena ku riyoonin in inta laga cabsado ay abuuraan dareen cabsi oo ay dadkan ka baqaan yeesa ku riyoonin waxaan markale ku celinayaa kuwa alalaasaya maanta bari ogaada waxa idin soo socdo waa maasantiin wassalaamu calaykum